ismalihi cilbaa kugu soo dhaweynaysa gobolka awdal waayo haddii uu qofku laba jeer dhalan lahaa waa gobolkaan ku dhalan lahaa awdal anigoo dhallinyaraana waan joogay anoo ardayna waan joogay anigoo shaqaalaana waan joogay maantana anoo madaxaan imi alxamdulillahi rabbilcaalamiin reer awdal waxaa dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan baa markii aanu kaambeynka ku jirray isa soo raacnay madaxweyne wuxuu is yidhi ninkanu malaa dabaduu ka yimida isbar iyo reer awdal waxaa noo soo galay suldaan dhawel buu ku yidhi aniga igu yidhi ninkan suldaan dhawel baa la yidhaahdaa waa nin suldaana suldaan dhawel baa ku yidhi waad ninkan baad ii sheegaysaa haa 82 waa ninkii liisanka ii qaaday kaasii warma isagaa kaa weynaa warkamaan weynayna farsamahan ugu qaadaan ku yidhi waxaa noo soo galay suldaan ibraahim wuxuu isiri isbar kaasuu ninka suldaan ibraahim baa la yidhaa suldaan ibraahim baa nimankan baad ii sheegaysaa waar isku galaas baabanu nahay dabeedna wuxuu warniyo awdal miyaad joogi jirtay war waan ku dhalan gaadhaan ku yidhi joogidaayo waa gobolkaygii waa gobol aan isleecili kaagama aqoon badna waa gobolkii aqoonta waa gobolkii xadaaradda waa gobolka aan isiraahdo yaa dadkiisa intuu qabto barisaa ugu saydha wax badan bay ku kordhin lahaayeen maalintii ugu dambaysay sanaag waxaan ugu maamaahay war annaga qolayna galbeedka reer sayra odayga wuxuu tahay hadduu islaantiisa la dagaalamo cumaamaddu ku dhuftaa dabeedna wuxuu dhaa maanta islaantii baan ku xayraamo cumaamaddan ku dhaxan la khashi idina ilaa islaanta xabad baa ku dhufataan intaynu isu jiraa waa kaafiye kala dheeri waynu u ducaynaynaa waa gobollo dad wanaagsan waa gobollo aad u khayraad badan si laakiin waxaad is odhanaysaa intii waxgaradka ahayd iyo intii wax u baratay iyo intii aqoonta lahayd intiiba way iskaga yimaadeen oo galbeed bay yimaadeen dhibaatada markaa waxaa isugu hadhay in aqoontoodu aad u hoosayso oo taada ilaa maanta aarso un garanaysaa waynu u ducaynaynaa khayr badan laha siiyaynu leenahay waa gobolkaynu dhammaantiin ka soo jeedno anagu waxaan idhaahdaa war saami qaybsi baa galbeedka nagu rogaye meeshan dhul qaybsi ha la galo dib aan ugu noqonno meesha waashmaan baa ka sii ahaydeene dhulka qaybtaydii baanu doonayna sheekh samaroon halkaasuu ku aasanyey sheekh ciisaa ku aasan sheekh isaxaaq baa ku aasan meeshaa baylah bay naga tahay aan dhul qaybsi u doonanaylata waa mahadsantihiin sida galgacakaysu u dhisan waanu ku ammaanayaa khayr badanna ilaahay wuu ina kala siinayaa kumahooda xumi awdal berigii igu horraysay awdal idan baanu ka dhaxnay hortaan idiin sheegay ninaannu saaxiib ahayn oo imminka sheekho maxamed daahir dhawal la idhaa iyo aniga ayaa la yidhi ninkii hebel gabadhu guursanayey allah u naxariista uu dhintee nin kalaa doonaya weerar baannu halkaa ka soo qaadnay awdal maalintaasaa igu horraysay khayr badan baa ilaahay nagala kulmiyey intiina su-aal yaroo igu soo noqnoqotay baa jirta suldaan saleebasho darhaan casuumadaannu ku lahayn hargeysa wuxuu weydiiyey warniga maxaa tiimbaro lagugu bixiyey maantana waa lay weydiiyey tiimbaro horta waa shaabadda anoo yaroo dhallinyaro oo nin ayaan maamulo ka noqday iskuul la yidhaa degmadan iminka meeshan la yidhaa cadaado galmudug magaalo madaxdooba magaca halkaasaan ka soo qaatay innagu berigii hore iskuulladeedu waxay lahaan jireen buugaagta textbooka iskuulka waa la shaabaday jiray koonfurna show lagama yaqaano dabeed anoo cusuboo maamulo layga dhigay aan buugaagtii shaashaabadeeyey saxeexaan ku saxeexaan oo ku yar adkaaday dabeedna halkaas warkan waa director timbro magaca horta halkaas uga raacay hargeysana waxa keenay shaqaalaha bahal LBC leeyahay laga soo hordiri jiray
markii la soo bedelay LBC-ga ka soo horreeyay xafiiska imtixaanaadka ee Hargeysa la soo bedelay 80 markaa la furiyay dabeedna bil baan xamar iska joogay wasaaraddu ba waxay isweydiistaa malaalin Talyaaniyeed imaantii baratii iyadoo magaciisu suuqa sii galay ayaan kasumaaladkii baraymo magacay kale ba walaahay magacaasa ku khasaaray ma ho shaabada waxa wanaagu maan ku shaabadayna waxa kuma naashaa khayr baa idin heshiinaya aad baan iyo koriyo hoos baan soo wareysan doonaa waa wada joognaa magaala aan baqayo cuqdadka qaba midna maaha waa magaalada ama yaro koriyo iyo ano weyn iyo ano madaxda isugu kay dirtay khayr baan idin heshiinaya waxa idinka filanaya waa khayro ila aqoontaas ila garab gashaan oo igu kaabtaan anna waxa ballan qaadaya كل التبشير